kamida jaaliyada Somaliland ee dalka Sheffield isla markaana si weyn uga soo qayb qaatay ictiraaf raadinta Somaliland muddooyinkii u dambeeyay safar ku maray qaar kamida gobolada Somaliland ayaa maanta si heersare loogu soo dhaweeyay magaalada Odweyne ee xarunta gobolka Daadmareed soo dhaweynta xubnahan oo ay qayb ka ahaayeen maamulka gobolka ka degmada iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan intaasi kadibna waxa loo soo galbiyay dhanka gudaha magaalada halkaas ay kulamo kula qaateen maamulka gobolka ka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyntii kulankaasi faahfaahin ka bixiyay maayirka degmada Odweyne Cabdixakiin Nuur Muuse isla markaana si weyn u soo dhaweeyay xubnahan ka socday jaaliyada Somaliland ee dalka Sheffield gobolada Somaliland maanta ku soo qaybmay maana khamiis Soomaaliya bishii shanaada magaalada Odweyne runtii waa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa Somaliland qaybta lixaad ka qaadatay oo runtii u noqotay horseedka ictiraafka Somaliland runtii magaalada Sheffield ee dalka UK inay maanta aynu ku soo dhaweyno oo runtii soo dhaweyn balaaran shacabweynaha reer Somaliland inay ku soo dhaweeyaan xubnahan ka socday jaaliyada Somaliland ee dalka Sheffield ayaa iyaguna ka mahad celiyay sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Odweyne haday tahay xaq qurux haday tahay xaq khayraad ilaahay ku manaystay waxa ma garanaysaa xoolo caano freesha maxay tahay geel dhalay shacab weyn soo dhaweeyay batroolkooda lagu jiraa maxay tahay inaynu dad wanaagsan iyo dal wanaagsan baynu haysanaay inaguna intii laynooga baahnaa inaynu runtiga dhiisha iskaga dhigno oo chance wacan baynu haysanaay oo duni madax banaan baynu joogno duni wax la kala dhageystaa baynu joognaay aynu inaguna sida iyagu halganka ugu dhabar adeegeen ee ugu dhinteen ee u soo dhiseen ay wali u joogaan dadka Soomaaliland gudaheeda jooga inaguna haddaynu markii xabadii intii ka carabtay iyo intii ka sii horeysay anigu ka mid ahayba inaynu ka kacno fadhiga oo dalkeena wax la qabano waxaan leenahay dhammaan dadka dibadda jooga waxaan ku boorinaynaa ma aha dadka gobolka u dhashay cid walba inay Soomaal gashato halkan iyo deegaanka Soomaal gasto ayaan ugu boorinaynaa gabagabadii barasaabka gobolka Daadmareed Jamaal Xuseen Hurre oo hadalka soo xidhay ayaa waxa uu yiri maayirkiina Sheffield waxa gaarsiisaan in reer miyigeedii iyo beeraladeedii iyo in mutacalimiinteedu ay maanta Sheffield caalamka oo dhan laga wada bartay Sheffield halka ku taal in taariikhda gashay in waa mid u horseeday in dowladda Somaliland ictiraaf ugu dambeyntiina waxa ay xubnahan qurba joogta iyo maamulka gobolka iyo degmadu si wada jir ah u dhagax dhigay jid laami oo dhex mari doona gudaha magaalada kaasi oo loogu magac daray Sheffield